anigoo habar jeclaa waxaan leenahay doorasho dhici mayso deegaankayga ka dhici mayso ururka ka hayo guddoomiyaasha waa burburinaynaa ilaa ninkaa la shirqoolay iyo dadkana la ka laayey ee habar jecel loo hoosaasiyey ilaa aannu u soo aarno doorasho dhacaysa iyo doorasho aannu gelayno iyo urur aannu furanayno wax alle wax ka jirayaa ma jiraan ilaa aannu u soo qabanno ninkaa garaaddo iyo rag u dhigma wax alla wax ka dhacayaa ma jiraan walaa xukuumad walaa cid kale toon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي ونكسن وقتي ونكسن ميل كستا جوجتان اي وقت كستا جوجتان كسو دوادا مانتي وراركاني هينو meesha rajaa la oo duqeydeedii mise dadku wax garadkeedii meesha ka hadleen ayaa sheegayaan si hadii muuqato sheegayaan in la shirqoolay ciidankii laga qabtay mise ciidankii bish jamcada hadan soo dhaafeen jamcada kale lagu qabtay gooja cad lagu qabtay oo qaarkoodna la laayay qaarkoodna ilaa hadda waqtigan la hayo qaarkood dhaawac ilaa hadda kulay waa la daaweeyay qaarkoodna maxbiisa laga yihiin ilaa hadda sida nool sheegay hadda ciidan ayaa la baxay masana ciidan maxbuusta meesha ku jireen ayaa qaarkood la baxay sida hadda xisaabta la sheegayana waa tiro dhameys dhan ilaa 60 qof ilaa 69 qof kuwaas oo cabdi madoobe uu la baxay oo kulay la maartay si in la dilan loola baxay oo hadda maartay waa la dilay been waay la isku dhaxayo laakiin sida hadda la sheegayo in la dilay ay tusayso teeda kale Faysal Cad Bootaan oo la isku asaga laftiisa la isku qalaafay dilkiisi oo meeshii hal la dilay lama dilay asaga laftiisa la yiraahday iyo beesha habar jeclo oo ay lafteeda ka cabanayso sidii maartay loola dhaqday mise sidii loo shirqoolay ciidankii meesha joogay Muuse Biixi ciidankii uu kulay uu madaxdu waa xamsan ciidankii meesha loo diray oo la dagaalamay meesha la isku haystay ayaa la sheegayaa in maartay la shirqoolay hadii sidii hadda noo muuqato mise sidii la sheegayo in ciidanka la shirqoolay maartay wixii meesha lagu qabtay mise dilkii mise dhamaashadii mise maartay qabashadii maartay ciidanka meesha joogay gooja cad joogtay in maartay ay ahayd shirqool oo ay ka dambeeyeen dawladda ka tirsan Somaliland oo taasoo in lagu halmeeyo mise in lagu qabto loo la rabay Muuse Biixi asaga laftiisa la sheegay meesha siyaasad ka watay siyaasadna uu lahaa in maartay meeshii lisqalqal geliyo mise ay meeshii maartay sifo ay maartay doorashadii macnaha dib ugu sii hakato hadii meeshii fikrad ayuu kala haaday in dadka laga hor imaaday meesna si ay hadda u muuqato mise hadda ekeed waxay ahayd in maartay dadka uu soo maartay wixii lagu hayay mise dhibaatada lagu hayay in kasta uu arkay jabhada badan ee iska maartay iska abuurmeen mise la saano dhinaca baxday burcad dib ka jira loo yahay dib badan dad badan jabhada badan ilaa kala go'ay dib uu ku hayay asaga dadka la awligeed kaas oo muddo kordhis raadinayo inuu muddada kordhis raadinayo ayaa meesha uu ka horaatay dagaalka meesha ku hayay oo maartay la saacado anaga leh mise khaatuma anaga leh laga mana goon kara ku dagaalamay maadaama meesha dagaalku ka dhacay sida la sheegay in shirqool ay ahayd oo dadkii maartay dad la shirqoolay ahayeen la sheegaya ilaa waxay sheegayaan dadkii wax gartaan duqeydii meesha ka soo hadleen waxay sheegeen ilaa laga qabtaa masane laga soo siidayaa dadkaas inay maaragtay ay doorasho la ogoleen masane qof doorasho ka qayb gali uu si jirin ayna ogoleen in doorasho meesha ay ka qabsoonto ay sheegeen teeda kale hadii hadda waxa ka soo wareegtay ku dhawaad 10 bari ayaa ka soo wareegtay hadii ay ka badneen taas oo ilaa hadda dawladda Soomaaliland abaabulkeedii waan kicinaa ciidanka inta geeya oo intaas oo ciidan baa la keenay oo intaas oo hub baa la keenay maalin kastaba sibir cusub la soo sidaanay maalin kastaba kilib cusub la soo sidaanay maalin kastaba wax kale oo cusub la soo sidaanay laakiin ilaa hadda waqti laaba oo dawladda meesha ay ka qaaday ay si jirin ayaa hadda muuqata in wixii dadka lagu madadaalinayo oo leeyahay hadda kicinaa bixin kicinaa hadda kicinaa si meeshii dadka hadii waa iska shicib wixii waa la iska loobi xamaasadan iyo waxan waa la iska loobi doonaa in maartay wixii baa abaabuleena wax baan hagaajinayna madaxweynaha wax baa la hagaajinaya kulay sida hadda u muuqato taas waay teeda kale hadii Muuse Biixi fikrad uu wato waxay ahayd in nin kasta oo madax soo dhaqaajiyo uu maartay kumaado nin kasta oo maartay madaxaas u soo dhaqaajiyo mise macnaha kula dagaalami karo xilkaas inuu asaga laftiisa uu iska reebo laakiin hadii meesha waa laga batay wuxuuna u aragtay in maartay meeshii noqon karto in laga qaado taas oo hadda abaabul kale iyo fikrad kale uu keenayo waan ognahay xildhibaanin badan inay ka hor imaadeen oo qaarkood dil maartay loogu hanjabay qaarkood loo ciidan loo soo diray oo in maartay la qaarajiyo la rabay inay maartay muddadii inuu kordhisto la awligeed ayuu intaas oo tilaabo mise intaas oo dhimasho mise intaas oo dil ayuu ka jeclaaday xilka dartii hadii waan ogeyn hadii xil nin qaaday
kolley haddii siyaasadda way iska dhib badanta waan ognahay imaan weyni iyo kolley waxyaalo badan ayaa ka subismaa haddii nin kursi ku fariistane inuu sii jeclaada ma ogi bas bay iga tahay nin dhar lama arkin haddii muuse bixina tillaabadii uu hayaa inuu dadka cunsuriyeeyo inuu kursigii sii reebto inuu kursigii maarata uu kusii fadhiyo inuu wixii isku hagaajisto ayuu doonayaa haddii inay hadda way ku soo dhawaatay inay maarata doorashadii iyo wixii way isku soo dhawaatay marka isaga wuxuu tusaaya waxaa waaye inagii doorashada ani iyo radaya wixii kale doorasho galaa ha galo bal wixii madaxweynenimo bal gadaal ha loo yar dhigo si ay maarata dagaalkan iyo hadda taan meeshii ay qabato meeshii inay dagaal lagu hayo oo qaatamo dagaal nagu soo hayso oo maartay Soomaaliya oo dhan dagaal nagu soo hayso oo harti oo dhan dagaal nagu hayo oo maartay daalada oo dhan dagaal u hayo dadkii Puntland iyo Jubbaland iyo Cari Ilaahay iska soo abaabulayo oo la raba ayuu dadka ugu sheekeynaya ilaa haddana wixii tilaabo uu qaaday ma jiro ciidankeedii dawladda oo dhisan oo 30 sano ka badan la dhisayo oo ciidan wax kale ay dhiseen hub la soo gatay wax kale horumar ay ka gaarin inay hadii dagaalka lagu soo qaado dad yar oo meel isku soo ururso dagaalkii ku soo qaadan intaas oo qofna laga dilo intaas oo qofna laga qabto waa suurtagal ma ahaanayso haddana ay kina hadii wax baan qaadayna ay dhaheen haddana mar labaad iyo haddana gadaal u sii guranayaan teeda kale ciidanka laayay xildhibaan maxamed abiib ayaa sheegay ciidanka la laayay meesha ku dhintay ilaa waqtigan eheladii iyo dadkii dhalay iyo dadkii la dhashay in loo sheegin oo hadda dadkii meesha ay uga maqan yihiin dadkoodana hadda ilaa waqtigan wax ay warka hayaan aysan jirin ilaa haddana wax ma artay mushaaraadkii iyo dadkii meeshii waxba in dadkan lacagtooda dadkii uu dhintay mushaaraadkii inta ugu maada wixii uu qaadanay inta ugu maada in la dhaxmi jirto wixii waxa la leeyahay dadkiin uu maqan yahay waa maxabiis waa intay joogaan kan way joogaan madadaalis baa lagu hayaa shacabkii meesha looga dhamaaday oo dawlad maartay ay ciidankii meesha ku dhamaatay ilaa hadda dawladda inay sheegin ayaa ay lafteeda noo muuqata mise la sheegaya oo mise xildhibaaninta qaar sidii sheegayaan ay tahay marka taasna maartay mid habboon ma ahan dadkii ehelada ee meesha intay dadkoodii in la sheego oo loo sheego oo hadii runta loo sheegana way fiicneed laakiin madaxweynihii iyo xukuumaddiisii iyo dadkii kale meesha xilka hay inay gadaal u gurteen oo shub ay ka dhaheen mise wixii ay qarsooni ka dhigeenayaan muuqata taana inay maartay u fiicneen dal ahaan oo muuse bixi uu xilkiisa inuu ku fashilmay ay u egtahay marka taasna waxay kulay xil jaceelkii iyo kulay inbay ka mid tahay